waxaanu soo dhawaynaynaa oo nu si mug iyo miisaan u soo dhawaynaynaa maxay hayday talaabada ku dhaca leh ee uu ku dhiiraday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynihii qaranku talaabada uu qaaday uu ku dhiiraday ayaanu soo dhawaynaynaa aad iyo aad baan soo dhawaynaynaa si mug iyo miisaan u soo dhawaynaynaa waa wax loo baahnaa wadanku inuu cid cilaaqaad la yeesho inuu cid walba maxay hayday uu furfurmo oo maalinka maanta cid kasta aynu maxay hayday cilaaqaad la yeelano waynu u baahanahay cid kasta hala soo dhaweeyo biyaha badeenu halkay doonana ku yaalaan berbera ha ahaato sayda ha ahaato laasqore ha ahaato badeenu intay leeg tahay in laynooga faa'iideeyo waa u baahanahay waxa faa'iido lahayna adduunka ma jiro waxa wax lagu kala bedelan isma siiyo dadkii si kale wax loo geliyay dulbo intii munaafaqada badnayd waa la siiyay waa la bixiyay soo loo bixin man baa beertiisa bixiya ma inaan bixin laakiin faa'iido lagu bedelaya iyaguna faa'iido qabaano faa'iido doonayaan inaguna faa'iido rabnaa marka faa'iidadeeni baynu nagu teena nin walba tiisa maxay leeyahay marka qosaysa waaween 17 dano nin kugu qaba dan kaliyood leedahay ayaa lagala baxaa danteena kaliinu kala baxaynaa waynu soo dhawaynaynaa waxaanu leenahay Mareykanku ha yimaado Imaaraadku ha yimaado China ha yimaado maalinka Ingiriisku ha yimaado cid wal oo danaynaysa Somaliland ha timaado hambalyaanu leenahay 24 sanadka bisha koowaad kow maad soo noola urtay farxadda wuu noogu dhamaanayaa 23 baa ahaa maxay hayday sanad yar kulul 23 baa sanad yar kulul ahaa 24 waa soo dhawaynaynaa sanad wacan baanu leenahay sanad wanaagsan baanu leenahay madaxda qaranka iyo golayaasha qarankana waxa leeyahay hala kala saaro wixii siyaasadda inaga dhexdeena iyo gudaheena iyo wixii faa'iido inoo soo kordhaya aynu kala saarno waxa leeyahay macaarid iyo maxaafid ba soo dhaweeya Imaaraadka maalintii Siiraaya la soo ballamay ee xukuumadan ka horeysay raaqaad kala soo sameysay ay la soo heshiisay waxa qayla dhacday afka qayla la furtay baarlamaanku yana sixin baa leeydi waa layna hiibsaday baa leeydi maanta waxaan filayaa inaan isii dhici doonin waayo waynu ilbaxnay waynu ogahay waxa faa'iido inaga soo galay inaan cidina dhacin waynu ognahay Imaaraadku wayna kireystay halka markuu waqtigiisu ka dhamaado uu ka tagi Itoobiya waa sideedii iyadana waxaan ka sugaynaa ka rajaynaynaa waa dalweyn oo muhiim miisaan leh oo aynu awalba isku furnayn oo aynu isku xidhnayn oo maalinka maanta inaga Itoobiya hadii reer Soomaaliya abaal bay nagu leedahayba wayna magaala gelisay magan bay noo fidisay waynu ku dhaqanay imikaynu ku dhaqanay Itoobiya imiku isdhexgalkeenu socdaa imiku maalinka maanta aynu wada soconaa waxaan leenahay Itoobiya iyo Somaliland awalba waxay way lahaayeen xiriir wanaagsan bay lahaayeen imikana idina cid xoog mayso idina cid waxba ka qaadan mayso cid boobisa ma jirto adduunka maxay jiraan shuruucaad jira wax lagu kala maxay leeyahay sida lagu kala baxo aayadoo dhaatay qof boobiya ma jiro xoogna waxba kuma kala qaado ma 24 baan marna cid xoog si cid gumaysanaysa toona ma jirto idina gumaysan mayso sidaan filaya anigu idina xoog mayso waxa ogeyn oo isla ogolayna dhici maayo boobna ma dhacayo xoogna ma dhacayo waxaynu inagu ogolahay oo inagu aynu rabitaankeena oo inagana dan inoogu jirto ma dhici doona waxa inoogu filan dadka reer Soomaaliya maanta fariin baa faraya waqtigaan hadlayaan taaganahay madaxdii Soomaaliya golayaashii isugu yeeray madaxweynahoodii inaga laynaga hadlaya daabeeso dabagaaladu shay ka qabtaabay haayno Soomaaliya madaxdu shay naga qabaan oo dushay naga ilaashanayaan mana ogolayno ka hoos baxay faa'iido yeelanay inaynu maalinka maanta horumar gaadho horumarkeena laga soo horjeedaa horumarkeena laga xiyahay waxa maanta laga hadlayo Soomaaliya ka hadlaysa waa horumarkeena wixii wax noo soo kordhinay hambalyaanu leenahay waanu soo kordhinay waanu soo dhaweynayna wassalaamu calaykum.